gaari dameeradani waxay biyaha u dhaamiyaan xaafadaha aan awoodin booyadaha inay u shubaan. Magaalada Hargeysa waxaa ka jirta biyo yaraan xooggan. Xaafadaha qaar biyo ma helaan oo waxay dhaansadaan gaari dameero iyo weliba booyado. Tuumbooyinka biyaha ee magaalada shaqeeya ma wada gaaraan xaafadaha magaalada. xaafadaha ay ku jiraan tuumbooyinkaasna xilli kasta biyo ma helaan. Xilliyada roobabka magaalada biyo badan ayaa dhex mara, taas oo dabooli karaan baahida magaalada ka jirta. Ma jirto hab lagu celiyo biyahani, waxaanay ku baaba'aan meel cidlo ah. Habka iyo hanaanka ay biyahani magaalada ku gaaraan waa hab hore, mana dabooli karaan baahida ka jirta magaalada. Maareeyaha wakaalada biyaha ee Hargeysa, Mudane Maxamed Cali Daarood, oo sheegay in mashruucani uu dhammaan doono sanadkii hore ee tegay 2017 bishii Tobnaad. Haddana waxaa la marayaa 2019. Halkaas waxaa ka cad in Mudane Maxamed Cali Daarood uu ku fashilmay biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. dilayga amba dib u dhaca dhinaca mashruuca jira of course mashruuca imika waxaan ku rajaynahay laba midba inay sanadkan gudihiisa si wanaagsan ugu dhamaadaan. qandaraaskii biyo-gelinta magaalada gudaheeda ama biyo qaybinta magaalada gudaheeda oo mashruuc runtii aad u weyn oo dawladda Jarmalkuna ay maalgelisay wuxuu socon doonaa qorshihiisa waxa weeyay maalinta la bixiyo contraga amba heshiiska mashruuca waa muddo 3 sano ah. biyo ballaarinta fashilantay 12 sanadood iyo 17 sanadood wadanka joognayba intaaba waxa la eegay biyahaasi inay soo gaaraan wadanka. 12 sanadood ayaa dadku wuxuu rajaynayay inay biyahaasi magaalada soo gaaraan oo ay anfacaan. waxa la ogaaday imaka in la siyaasadeeyo oo la khiyaameeyay oo cidi ay lunsatay. haddii dawladda Muusabixi imaka arrinka ay wax ka qaban weydo cidii lunsatay khiyaamaysay wax jiraya ma jiraan. waxa dhacday in markii dambe aad caasimadii ku fashilantay caasimad ictiraaftoona oo hadana bilaabiya runtii maaha wax loo dul qaadan karo. waxaan hambalyeynaya bahdii muujisay ee iclaamsay inay caasimadda Hargeysa ka soo bixi waayaan biyo ama lagu guuleysan waayo mashruuci biyo. qarashka la geliyay biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu noqonayaa 143.5 milyan oo dollar. haddana Hargeysa way biyo laada. biyo ballaarinta iyo biyo gelinta caasimadda ayaa noqonaya mid ay ka niyad jabeen bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Guuleyntii uu kala dambeeyay wakaalada biyaha Hargeysa ayaa shacabka ugu baaqayay biyo ballaarinta Hargeysa inay gabagabo ku dhowdahay iyadoo farika qodnayn. waxaana shacabka hadda u arkaan biyo ballaarinta beenta ah mid lagu maarursiinayo bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa. mashruucani oo noqday mid u eg hal bacaad lagu lisay. imika qaybta pipe ama doomihii biyaha soo qaadayay ay gabagabada ku dhowdahay. waxa la hayana maarna waxa wanaaleeyay waa la rafiday. dee Ilaahay baan suugnaa annagu iyo cid laanta kuwa. waxaan baan u aragnaa niman dantooda iska urursanaya. marka idina inay noo maqantay ma qabno. idna kaar laguma haysa oo markii wixii uu dadkuna waxba kuma noola 5 foosto wax ka yarna lama shubo 5 foosto tawaangidaas dadku ka cabaa masaakiintii kuwaas wax laga siiya waxa weeye daan kastaba waa lagu oomay waa dad dulmano idina Allah uma qadna idina uma maqna ninkii fuulaana isagu bayraa intaad meesha wax joogto waxaan u qabnaa wax ka ursaynu ilaa marka dee waxaan leenahay wax iska ursadaani annaga idina nooma cidna ku dhibi mayno waxana ka halkaas loo xarxaro leeyay 2015 intaas soo goorma bilaacada dib ay su dhageystaan iyo biyo helaysa muddo dheer oo ay ka badan 3 san madaxweyne isxigay biyo soo socdo halkan soo socdo un baan la leeyahay. maanta halkan la soo gelinayaa baa la leeyahay. taangiyaa la saarayaa baa la leeyahay. waxaanu leenahay waa gurguurashadii weeye miyaanay bislaan karin miyaanay soo gaari karin beer cadaadkana hayaa 14 abaarood ogaan loo canaaday oo loo baabiyay baanu qabnaa. nimankan wasiirada amba dhiijiyada amba hadii beedamkeed leey maamulayaashuna dadkan inay wuxuun isaga sheegaan oo dorasa mooyaan amba aqoon baanay u lahayn amba daacad baanay ka ahayn. qarashkani ku qasaaray biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu noqonayaa mid ay ugu deeqeen hay'adaha iyo wadamada kale ah Imaaraadka Carabta oo mashruucani geliyay lacag dhan 30 milyan oo dollar. midowga Yurub oo ku deeqay 36 milyan oo dollar. Somaliland Development Fund sanduuqa horumarinta SDF
ayaa isaguna ku daray lacag dhan 38.5 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Dalka Jarmalka oo isaguna ku deeqay 23 milyan oo doolar. Shirkadda Coca-Cola SBI ayaa iyaguna ku deeqay 5 milyan oo doolar. sidoo kalena World Bank oo iyaguna ku biiriyay 12 milyan oo doolar. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay noqonaysaa halkeebay martay lacagtani. Bulshada Soomaaliland waxaa ragaadiyay biyo yaraan xoogan xilmiisa ka baxasa.